بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم walaalahay meel kasta joogtaan. Kasoo dhawaada janaalkiina waa janaalkii walaashiin isku filan Soomaali maanta iyo fiidiyo cusub maasha Allah tabaarakallah. Maanta waxaan idin wadaa keekaas maasha Allah tabaarakallah oo oryaalka aan saaray oo creamka aan saaray maasha Allah tabaarakallah. Like saara, subscribe saara, fiidiyowga share gareeya maasha Allah. Keek professional oo kala la sameeyaan ku dhahay wax la dhashay ma jiraan meeshan dhiirigelin ka jirta kasoo qayb gal maasha Allah tabaarakallah. Challenge way qofkii soo sameyn karo walaal maasha Allah ila soo share gareyn kara ahlan wa sahlan aan leeyahay. afar xabo ukun aan hore fridge-ka uga soo bixiyay aan qasay maasha Allah tabaarakallah. markay saas u soo cadaatay iyo waxaan ku daray hal bakeeri oo sokor ah macaankana aday kugu xiran tahay maasha Allah tabaarakallah. walaalahay soo dhawaada insha Allah. meeshan macmacaanka adduunka laga helayaa ku dhaa maasha Allah. hadaa casriyadad u rabtid hadaa family isku imaanay waxaan ku daray bakeeri nuskiis oo saliid ah ku daray hadaa rabtid badhara isticmaali karta insha Allah. intaas isku qasaaya hadduu ilaahay yiraahdo walaalahay. marka like la-aan jirto fiis la-aan meesha ka jirto maasha Allah tabaarakallah. fiidiyowga youtube-kayga waxaan soo geliyay waxyaabaha maaragtay macmacaan cuntooyin dhiirigelin oo hooyo waaye maasha Allah tabaarakallah. iyo gabadhii rabta inay iska barato waxyaabo iska basiid ah waxaan soo qaatay 2 bakeeri oo bur ah oo majirin koobka aan isticmaalay bakeeriga qiyaasta ah waan shaqshaqay marka insha Allah wax kuskuusayn u yeelan ay hawana maaragtay keeg uu soo galo saas dartiisa u shaqay hadduu ilaahay yiraahdo. waxaan kaloo ku darayaa vanilla iyo qaandadaas oo baking powder-ka ah insha Allah. marka maasha Allah tabaarakallah daarti hayla isticmaal karta orange isticmaal karta burtuqaan marka maasha Allah tabaarakallah. hadan waxaan ku daray hal bakeeri oo tumi dhiman oo majirin koobka ah caano qandac ah iyagan insha Allah. intaas isku qasaaya insha Allah. daawasho waxaan walaalahay foornadan soo gelin doonaa insha Allah. saxankan waxaa saaraya warqad sayna iiga dhigin haddaadna haysanna waxaa marin kartaa maaragtay bur iyo subag amba badhar hadaa haysatid sibda kadibna waxaan ku dhahay ovenkan gelinaya maasha Allah. soo baxan oo arki doonaa waxaan hore ugu practice-gareeyna maaha first time aan sameeyay maasha Allah tabaarakallah oona kusoo baxay. marka walaalay waxaan dhihi lahay baroobeeya ani chef ma ihi marka saas inuu noqdaa la rabaa. haddaa number qortid ama number 8 qortid inuu maaragtay dhag hore kasoo baxo. haddana qaandadaasaan soo qaatay wixii kuskus ku jiro dhan waa israacsiiyey keeg waxaan ka dhigay yacni wax is haysta oo maaragtay maasha Allah burburi waxba aan lahayn waa ifahanteena rajeyna insha Allah. haddana waxaan kusoo shubay saxankii aan ovenkana gelin lahaa foornadan waa sii shitay maasha Allah tabaarakallah. hadhowna markuu noo soo gaduuto waxaan ku sameyn doona insha Allah waa isla arki doonaa next step. daawasho waxaan meelnaha aadinayaa meeshiina la ii fadhiya hadduu ilaahay yiraahdo. haddana waa kaas saxankii miiska ku qarqaraacay say maaragtay babalka hawada uga soo baxda insha Allah ku jirto doorshada. haddii kaleetan hadhow wuxuu yeelanaa dulduleelyo badan oo maaragtay eerta ku jirta in laga soo bixiyo waaye saas darteed marka miiskan jugjug ku siiyey maasha Allah tabaarakallah. haddana wuu noo soo gaduuto waa kaasaa keegeeni foornada waa kasoo bixiyey maasha Allah tabaarakallah. haddana waxaan ku dhahay dhinac kale hataa u gadiyey labaan rabaa inaan ka dhigo hadduu ilaahay yiraahdo. midaas mishaarta aan qaatay soo iska qiyaasay bas ishaada lay ku qiyaas waaye say ku noqoto. marka maasha Allah 2 nusaan ka dhigayaa hadduu ilaahay yiraahdo. saas u jircanyaa maasha Allah tabaarakallah. haddaa rabtid kasii qafiifsanaa ka dhigi kartaa 3 layers ka dhigi kartaa marka iska fikrad yar waa iska basiid ah insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo. haddana waxaan soo qaatay whipping cream aan soo qaatay creamka kale waxaan u maleynayaa caanaha maaragtay markii oo la ruxo korkooda ma arkin oo subag soo kori jira kaas u egyahay oo dhiisha caanaha intuuna subag oo maaragtay caadi u noqonin oo saas camal u egyahay kale caano waaye laakiin creamka ku badan subagga ku badan
laakiin saasna aniga ay diyaarteed saas ila tahay. Whipping creamka waa caanaha marka la ruxo caanaha kor saaran intayna subaga ayna noqonin ay weli ay cad yihiin kaasu camal waaye yacni tik waaye yacni faatkiisa badan marka laakiin ma aqaan si u sameeyaan almuhiim ay diyaarkayga iska ahayd marka insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo intaasna waxaan ku dhahay kaftan iyo waxaa waaye iyo waa u malaynaa lee waaye marka maasha Allah whipping creamkii waxaan ku daray sokorta oo shiidan oo budada ah aan ku daray icing sugar aan ku daray waa soo qasay makiinadaasaan ku qasay maasha Allah haddaa rabta qalaatada caadi waa ku qasi kartaa macagadaasaan usoo qaatay keega dhan waxaan ku dhahay waa loo masaajeynaa aan ku dhahay isaga dhanba waa la daboolaa aan ku dhahay maasha Allah tabaarakallah macagadaasaan qaatay iska basiid waayaan ku dhahay dhag gees kasta ka mari maasha Allah midka kale korka ka saar yaa asigana sidoo kaleeta u marinaa maasha Allah tabaarakallah kulligiis markaan daboolo markaan kulligiis daboolo insha Allah waxaan sameynayaa frinjeerkan soo gelinaa intaa maaragtay aan kasii sameynaayo kan oo maaragtay madowga oo chocolate ah talaajadan sii gelinaa because ma rabo inuu maaragtay iga dhalaalo hadduu ilaahay yiraahdo because haddaa banaanka ku haysid asagoo qabow ah frinjeerka kasoo bixinaya baaquligaa ku sameynaysa creamka waxaa la rabaa inuu qabow ahaado creamkan waxaa la rabaa inuu qabow ahaado soo maarta oo kuugu soo kaco haddii kale wuxuu iska noqonaya biyo ma yacni masaqo whipping cream camal ma noqonayo oo maaragta wuxuu noqonaa wax iska jilcan marka saas darteed marka waxaa fiican haddii waddankaa joogtidna uu ku leeyahay weligaa allaha creamka banaanka iska dhigi frinjeerka kasoo bixi raayada way qas keegaada waxaan ku dhahay frinjeerka ku xirayso after that wixii kaloo sameyn rabtid haddana wixii kaloo qaboobay mari insha Allah markaas maasha Allah tabaarakallah wuu noqonaa haddii kale wuu kaa dhalaalayaa hadduu ilaahay yiraahdo marka maasha Allah tabaarakallah waa soo sameeyey waxaan isku soo daray chocolate iyo whipping creamkii aan isku soo daray microwave-kaan geliyey waa soo kululeeyey bacdaas oo sandwichtaan ku shubay oo si baaga ah cream waa soo wuu ii qaboobay maxaa la dhahay sheek shokolaatadii aan sameeyey iyo whipping creamku ii qaboobay keegaan soo bixiyey leemankaas le u sameeyey aan ku dhahayno bidix midig saa adiga rabtid marka maasha Allah haddaa rabta sigsaaga ka dhigi kartaa dhibcaa mari kartaa banooniga waxaa waaye mataqaanaa malcabkaada u yaalaa waaye ma fahantay garoonkaada u yaalaa dhinacaa rabta u haraanti waaye aan ku dhahay keeg markaad samaysid aday kugu xiran tahay decorationka weyga adiga aa rabtid abaaydiin saanay kasoo dhigtaan ku dhawa soo hariiqday waxaan ku dhahay geesaha waxay ka keentay leemankaas maasha Allah tabaarakallah haddana waxaan ku dhahay waxaa la marinoyaa aan ku dhahay professional ma ka taqaanaa maasha Allah tabaarakallah gacantaada bay Allah kuu barakeey waxaa la amaan afkaada kaaga horeysa lama dhigano haadhe abaa isku filan waxaan ku dhahay waa kaasaa maasha Allah tabaarakallah tabaarakallah saas usoo wareejiyey bacdeen waa ku celinaa second time because waxaan ogaaday biscuitka aan saarayo inuu maaragtay creamka uu ka hooseeyo soo marka waxay noqotay sheekada maaragtay inaa sarta la dhisaayo dabaqa maaragtay dabaq kale lagu daro oo second floor lagu daro marka creamka in kor loo qaaday noqotaan ku dhahay facekaas waxaa la biscuitkan ma la saari karo ma ku dhuuman karo because waxaa la rabaa biscuitka inuu maaragtay labelkiisa xoogaa ka daba dhawaado creamka marka waxaa ogaa kartiin walaashiin waxaan ku dhahay iyada naftigeeda waxba barbaranaysa waxaan ku dhahay marka wax lala dhasha ma jirto aniga wixii la kariyo waa kari karaa taaganahay marka waa kaasaa walaalahay dhiirigelinta xaggeena waaye adikana waxaan ku dhahay qofka soo sameyn karo maasha Allah challenge gabdhaha waaye insha Allah qofka soo sameyn kara ahlan wasahlan waa soo dhaweynaa haddii wax laga faa'iido walow haddii wax yariis hadday tahay maasha Allah like aan ka arko insha Allah fideogana share gareey walaalahay hadduu ilaahay yiraahdo waana mahadsantiin daawashada ay daawateen sidaani mar kale aan ku kulmayno video cusub oo saan kasii fiican insha Allah waxaan idinkaga tagayaa fi amaanillah asalaamu calaykum